حمام نودي نودي سل على سعودي حمام نودي نودي حمام نودي نودي حمام نودي نودي سل على سعودي حمام نودي نودي أطفالنا أحبابنا يا نسل خير أمتي يا أمة القرآن هيا نقيم دولة للعدل والحرية يقطنها الإحسان إسلامنا يدعو إلى تسامح ووحدة فكلنا إخوان نفرق بين أبيض وأسود أحبتي فلنحيا في أمان نعم نحب وحدة قلوبنا مفعمة نخرج نمضي قدما شعارنا هي عمل بيت عزيز احترى الله يا أولى الأمم يا من سموتم بالقيم سيروا بجد وهمم قيمتنا أخلاقنا والدين كله شيم كفاه نورا في الظلم لأننا خير الأمم إلى التحلي بالقيم أطفالنا هيا اسجدوا لواحد فرد علم لله واهب النعم رحل المطر بيد الله أطفالنا أحبابنا يا نسل خير أمتي يا أمة القرآن هيا نقيم دولة للعدل والحرية الله يا أغلى الأمم يا من سموتم بالقيم سيروا بجد وهمم قيمتنا أخلاقنا والدين كله شيم كفاه نورا في الظلم نحن بني الإسلام نمتاز بصدق وبنم لأننا خير الأمم يجمعنا يدعو الأخص والأعم إلى التحلي بالقيم أطفالنا هيا اسجوبا waxaan quraanka inuu lagu daaweeyo male dadku markay soo daalaan waxay ku leeyihiin dhakhtarka soo daalno wax kasta ka soo daalno bal quraankana hana lagu aqriyo may quraankana hana lagu aqriyo ma aha taas waxa weeye marka hore intaadan gaalka aadin quraanka u tag gaalka inaad u tagtay laguma diidana laakiin kuma daawadi runta hayda quraankana maxaa yeelay daawada aakhiradana sagaa daawada adduunkana sagaa bismillah ma iska furi karaa waxa la yiraahdaa ma jirto ragga ilaahay wuxuu dhigay xilaha orida iyaga dalqadeeda haya laba waa mid uun markayna su'aasha ku dheeraanin in ninka ay ka dhamaysato oo dalqada ay ka iibsato waxa loo yaqaan fiqiga islaamiga ama shariicadeena al-khulu' ya hore loo arkay ma walaalaha ahlu khayrka tabliiq iyaga u socda oo khuruujaya oo dacwo wada ayaa waxa dhacday waxay ka hor yimaadeen naag ku dhagan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن نقدين هذا نوحي كهري من الله إنه إسكودك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كدي بوحي أركان بعد نين إناق إسكودك الحمد لله مصائبته أيها كليا محايا لا الشر بعضه أخف من بعض ويكلا فضود ده بإسليه يعني نين وحكر هذه إناقنا وحكر هذه والله بشوي لقى لكن مركي أركان نين إناق وما الإسلام جوج الحمد لله بعدين مرة دي بعد كل عظيم امرأة نين هداد أركتون نين رجعة ورجع خي وحوي هوني ونكسم بكذا بيسا
هذا عرفت نرجس أساقس كهرين هويني بالله حرتي وي معناه أساسا بيش كل عظم المرأة الصالحة وحكنا ذهب كنينكاس 6 أما المرأة السوء نوحي عند الرجل الصالح مثل الحمل الثقيل على الشيخ الكبير وضيدأه وعليس وين مدح لغا صار دكدا لغا صار oo kale ay weeye haweenta markay tahay haweenay dib badan waxa ilmaha barayso iyo waxaad ku dhaqmayso waa inay isku mid yihiin way in telefishinka aad shidato oo musalsal aad fiirsato ilmiina xaggaad fadhiiso oo tiraada quraanka akhri adiguna aad akhrinaynin waa arrin khatar weeye وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ما دون أيوه إن خلافه وحا معناها أن يكرر بل وذا فربنا وانا سنين بعد كم مشغول هسه مثلا هذه هوينا تقول كذا جوكتا يكون ده شو برش هذا انت ردي انه جنبه هو علمي كل كتاب قدامه كل كتاب قدامه واحد كم مشغول هسه ان التليفون ما انت دن ادقت هايسته اني تي في اذا ما انت نهر فرده مسلسلات انا نفعي ولا هينا كم مشغول شو reer caruurti waalidkii way fiirsanayaan markay arkaan waalidkii cilmi ku mashquulsan isaga laftiisu ku mashquulaya waxbarasho jacayl haddaad dhanka mawjadu u socoto u dabaalato waad fududaanaysaa waayo biyihii baa ku sido isku dhan baa u socotaan markaa dabaasha waana dheeraynaysaa horena u daali maysid biyahana ku sidaya dhankii aad u socotayna u socdaa waxaa la mid ah markaad bio isku afkaartihiin iskuula isku afkaartihiin suuqa isku afkaartihiin aad joogto dhankaasaa wada dabaalanaysa waxaad ku socotaa meel yaqiin ah rasmi aad u socotaa meel cayaar lahayn oo yaqiin aad ku socotaa sidaa darteeda hadda tawbada wanaaji dhallinyarnimadaada ha ku kadsoomin caafimaadkaada ha ku kadsoomin xoola aad haysata ha ku kadsoomin nicmada alla subxaana watacaala ku siiya ku kadsoomin oo waxyaalahaas dhan u adeegso alla subxaana watacaala rilihiisa gaaritaan cudurka Soomaalida maaragtay qabiilku qofkii isagoo garanaya war dadkan islaynaya qabaa'ilka ee muslimiinta ah inay fidna tahay waxan kani ayaa لواحد فرد عالم لله واهب النعم بيد الله بيد الله كسر حويات الله راح المطر بيد الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وقال الله تبارك وتعالى وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما اللهم صل على محمد. وقال الله تبارك وتعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقال الله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. ثم قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله مغبرة قدماه إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في الحراسة كان في الحراسة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بسم الله. إخواني أخواتي وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضى. جزاك الله خير. أولا وقبل كل شيء هذا الهرتي دمانتيس horta ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanaynaa inuu noo dembi dhaafo fanaqulu nastakfiru allah nastakfiru allah nastakfiru allah allahuma اغfir lana dunuubana inaka anta algafuur الraxiim. guud ahaan ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanaynaa, gaar ahaanna waxaan dembi dhaaf anugu weydiisanayaa ilaahay rabbigay inuu icafiyo, lianna inaan dad saalixiina oo isagu uu doortay aan sifaadkooda ka hadlo anigoo xaalkayga og baa dembi weyn aan u arkaa inay tahay hadduusan ilaahay cafinin. marka in sha allahu tacaala allah icafiyo. kollayba waxa aan ka xusuusto ama aan ka sheegayo wax hadda gaar ahaan oo muxaadaro ohon idiin soo diyaariyey ma jirin duruufo awgeed duruufo ila soo xiriiray awgeed, laakiin wixii un qur'aanka aan ka xusuusto iyo xadiidta nebiga calayhi الsalaatu wassalaam iyo siiratu salaf الsaalixiin un baan halkan ka sheegaynaa. waana wax ku saabsan dadka wanaagsan ee ilaahay doortay. allaha noo dembi dhaafo inaan sifaadkooda iyo astaamahooda wanaagsan ka sheekayno annagoon ku sifaysnayn, laakiin waxaan un rajo ka qabnaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala maadaama uu yacni na baray oo na ogeysiiyey sifaadkooda fii kitaabihi nana haleelsiiyey inaan ka hadalno inuu na waafajiyo inaan ku dayanno iyaga oo dariiqooda aan marno. walaalayaal towfiiqda allah na waafajiyo. waxaa wax dadka makhluuqaadka waxaa lagu kala soocaa ama ay ku kala duwan yihiin ama ay ku kala sharfan yihiin waa bisifaat, sifaat iyo astaamo iyo khisaal iyo dhaqan ilaahay uu siiyey bay ku kala fadilan yihiin oo ay ku kala fiican yihiin. xataa ashyaada dadka ay haystaan waxa ay ku kala duwan tahay ay ku kala qiimo badan tahay waa manaaficda iyo sifooyinka ay leeyihiin. ilaa laga yidhi xayawaankan ayga la yidhaah waa xayawaan ma garanaysaa yani xayawaan la liido weeye oo dadku dhaqan ahaan ay liidaan, inkastoon meelaha aad joogtaan dadku aad u jecel yihiin bahalkaas, laakiin dee guud ahaan bahal xayawaan la liido weeye oo iska najas u badan oo yani ma garanaysaa xataa dadku ay isku caayaan markay iscaayayaan, qof ay lagu yeedho qof la caayo oo kale wey. wamaca dalika ayga naftirkiisa markuu sifaad yeesha baa la yidhi astaamo gaar u ah qiimuu yeeshaa, kan kale waa ka duwan yahi. oo ayga mucallamka ah ee la baro sida wax loo dabo waa ka duwan yahay. hadda kuwa ay adeegsadaanoo waxaa jira ay wax ku baaraan ama waxyaalahan mamnuucaadka ahee la manciyo ay ku baaraan baa jira, waa ka qaalisan yahay. hal xabo aygaa ka mid ah boqolaal ayaha bannaanka iska jooga oo ka qiimo badan. marka haddii halkaaba ay gaadhay in xayawaanka uu ku kala fadilnaaday fi sifaat fa kayfa bilinsaan, insaankii marka horeba ilaahay sharfay ee makhluuqaadkiisoo dhan uu ka fadilay, isna waxaa kala fadila oo kala qiimo sarraysiiya waa bisifaat walacmaal الصaalixa. marka ilaahayna leeyahay في هذه الآية الكريمة الشاملة العامة المعروفة
yaa ayuha annaas dadkoo dhan baa lala hadlay innaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa innaa annagu haddaan rabbulcaalamiin nahay khalaqnaakum min dakarin wa unthaa waxaanu idinka abuurnay dakar iyo unthaa aadam iyo xawaa oo aabbiyo hooye keliyaad lahaydeen kullukum sifo kasta yeesha madoobaada caddaada dheerdheeraada gaabgaabnaada indha yaryar indha waaweyn kulli shay walaakiin asalkiinu wuxuu u noqonayaa hal aabbo iyo hal hooyo wajacalnaakum waxaanu idinka yeelnay shucuuban shucuub iyo qabaa'il qabiilooyin litacaarafuu si aad isu barataan oo isu kala garataan oo jinsi fulaan iyo bani fulaan iyo cillaan iyo laakiin ilahay muxuu ku soo gabagabeeyey ina akramakum cinda allahi atqaakum alaslu waxaa weeye saaad rabbigiin ugu dhowdihiin ama aad xaggiisa ugu karaamo badan tihiin kiinna idinku karaamo badan kan idinku taqwo badan jinsiguu doona ha ahaado midabkuu doona ha yeesho luqaduu doona ha ku hadlo lacagtuu doona ha haysto faqiir ha ahaado hani ha ahaado uma kala soocna ilaahay agtiisa waxaa kala soocaya keliya attaqwaa bimiqdaar qof kaste qofka kale uu ka taqwo badan yahay ayuu ilaahay agtiisa uga karaamo badan yahay ina akramakum cinda allahi atqaakum nabiga calayhi asalaatu wassalaam isagoo tusaale ka bixinaya ayaa waxaa soo maray nin raggii la fadhiyey buu yidhi bal ninkaa iga warrama waxaa la yidhi ninkan haddaan kaaga warramno waa nin shariifa waa nin maqaam dadkiisa ku leh waa nin maalqabeen ah waa nin aad loo ammaanay ninkani haddii uu gabar doono hore laga siinayaa oo cid u diidi kartaa ma jirto haddii uu wax shafaaco qaada ama uu meel ma garanaysaa u hadlo hadalkiisa horaa laga ma garanaysa hadduu hadlo waa loo aamusayaa oo waa la dhegaysanayaa yacni wax alla wixii wanaagsanaa oo dhan bay ku sheegeen way iska tegeen ninkii hadhow nin kaleoo miskiinaa soo maray meeshii kanna iga warramayo waxay dhaheen yaa rasuul allah ninkan waa nin iska masaakiinta muslimiinta ka mida iska daciifa ninkan waxay dhaheen hadduu gabar doono loo guurin maayo cidna gabadhiisa siisan mayso waa miskiinan waxba haysanin hadduu hadla la dhegaysan maayo oo cidna u aamusi mayso haddii majaalista la fadhiyo isagaa iska hadla maahan cid dhegaysanaysa male hadduu waxbaan shafaaco qaadayaa warbal arrintan ha laga yeeli maayo xaalkiisa waa kabaale haddaan kaaga warramo nebigu markaasuu xukunkii sheegay aragtidaasi waa aragtida dadka weeye waa nadarkooda gaaban ee kooban ee qaasirka ah ee aan ku wada dhaqannahay hadda ku wada joogno alxaqiiqa cinda allahi buu uga warramay marka wuxuu yidhi ninkan miskiinka ahee aad sidan ku tilmaanteen ee haddii uu gabar doono aan loo guurinaynin ee haddii ma garanaysaa uu hadla aan la dhegaysanaynin ninkan ayaa wuxuu ilaahay agtiisa ka khayr badan yahay kaa aad horay u ammaanteen keligii ma aha kaa oo dhulka muggiisa kaas keligii ma aha kii aad horay u ammaanteen oo dhulka buuxiyey wuxuu cadad ka qabo kan keligiisaa ka khayr badan cinda allah muxuu kaga khayr badnaaday biالصifaat wاlacmaal الصaalixa wbالtaqwa ee kama lacag badna sidaad u maqasheen kama sharaf iyo qabiilo wanaagsana intaba kan kalaa dheer laakiin kan agtiisa ilahay xaggee buu ka jooga kanna xaggee ka jooga dadkaas astaamaha wan wanaagsan ee saalixiinta ah waxay gaadheen darajo waxay gaadheen markii ilaahay uu jeclaaday muxuu ku jeclaaday midabkooda kuma jeclaanin maalkooda kuma jeclaanin qabiilkooda kuma jeclaanin shay oo adduunyada ah ama cilmi la bartay ama kada kuma jeclaanin wuxuu ku jeclaaday iimaanka iyo camalka saalixa ay ku dadaaleen darajada ilahay agtiisa ay ka gaadheen dadkaasi qaarkood waxay gaadheen in allahu rabbulcaalamiin oo iyaga dartood u caroodo iyaga dartoodna uu u raalli noqdo nin hadday raalli ka noqdaan ilahay raalli buu ninkaas ka noqonaya hadday nin u cadhoodaanna ilahay baa u cadhoonaya
biduuni sabab way dhacday waad maqasheen baan u malaynayaa saxaabadii bilaal radia allahu canhu iyo suhayb iyo salmaan saddexdaas saxaabi waxay ahaayeen saddex saxaabi oo mujtamacii maka ama madiina aan qabiil ku lahayn oo aan qolo ku lahayn waxay ahaayeen dad bilaalna wuxuu ka dhashay xabasha ayuu ka dhashay salmaan farisi buu ahaa suhaybna ruum buu ahaa dad waxay ahaayeen addoonnimo la addoonsado soo maray mujtamac ahaan marka la yidhaha dadka ugu qiimo liita bay ahaayeen walaakiin ilaahay bay rumeeyeen nabigiisii bay rumeeyeen calayhi salaatu wasalaam diintii bay u dadaaleen naftoodii bay u hureen allah rabbulcaalamiina ayaa jeclaaday darajada ay gaareen baa nooga sheekeeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam berigii islaamku uu guulaystay oo xoogaystay oo heshiis baa waxaa la gaadhay gaaladii iyo muslimiinta dhexdooda oo hudna la sameeyey waxaa la 10 sano hal isdaayaan la isdagaalin heshiiskaa nabiga ayaa u waqacay oo saxiixay ogolaaday kufaaru quraysh qoladii quraysh ee nabiga qabiilkiisa ahayd gaaladoodii waxay qaarkood iska iman jireen marka madiina ileen hudna dhacday dagaal ma jiro abu sufyaan ninkii la oran jiray ee hogaamiyihii ugu weynaa gaalada ayaa madiina yimid iyadoo sulxigaas iyo heshiiskaasi uu jiro madiinuu soo galay madiina haddee waana gabadhu asagu dhalay oo nebigu qabayna waa jiray calayhi salaatu wasalaam waana iska yimid heshiiskaasna waa laga faa'iidaystay markii ay arkeen saddexdan ninoo wada taagan bilaal iyo suhayb iyo salmaan baa arkay abu sufyaan oo iska socda madiina dhexdeeda oo acdaa ilaahi ah oo dagaalkii uxud iyo wixii ka horreeyey iyo dagaaladii oo dhan ninkii balada oo dhan waday ahaa bay waxay arkeen isagoo madiina iska dhex yalaafyoonaya oo iska socda xogay waxaa qaaday xamiyat alislaam kelimad bay dhaheen markii run ahaan la yidhaha kelimadaasi kuma habboona waqtiga heshiiska qaar kale waxay ku dhaheen maa akhadat suyuufu llahi min cunuqi caduwi illaahi ma akhadaha suyuuftii ilaahay ma aynan ka marin meeshii laga rabay inay qoorta ninkan cadowgan ilaahay ay ka marto ninkanaaba weli nool miya oo weliba madiine dhex maraya alla ilaahay suyuuftii ilaahay kaanaha xaqeedii ma ayna gudan ninkaan kamay gudan waa kelima markii run ahaan la yidhaah fi hada almaqaam maqaam heshiis uu jiro oo ma garanaysaa sayiduna abu bakrin asidiiq radia allahu canhu ayaa qowlkoodii maqlay abu bakrin asidiiq radia allahu canhu waa ka wada fadli badan yahay asxaabta oo dhan waa khayru nnaasi bacda alambiyaa radia allahu canhu waardaa meeshaana qowlkaasi inuuna ku habboonayn buu dareemay iyagii buu canaantay oo wuxuu yidhi ataquuluuna hada lishaykhi qurayshin wa sayidihim quraysh sheekheedii kabiirkii ugu weynaa ee sayidkooda ahaa miyaad kelimadda xun ku odhanaysaan yani hadal noocaas oo adag ayuu ku yidhi iyagii intaa ku mudaynini nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu u sheegay isagoo u dacwoonayo oo bimacnaa inuu nebiguna ka nahiyo u jeeda nebigu u sheegay wuxuu yidhi nimankaas sidaasay abu sufyaan ku dhaheen meeshuu wax kale ka filaayay arrin yaablaa ka hor timid abu bakr radia allahu canhu abu bakr nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam qaala liabi bakrin wuxuu ku yidhi aqdabtahum nimankaa iyagaa miyaad ka cadhaysiisay abu bakarow isagoon jawaabin ayuu nebigu hadalkii sii wato wuxuu yidhi lain aqdabtahum laqad aqdabta rabbak haddaad ka cadhaysiisay nimankaas ilaahay baad ka cadhaysiisay ogow abu bakr wuu soo cararay iyagii xaggoodii buu ku soo cararay yaa ikhwataah walaaladay aqdabtukum miyaan idinka cadhaysiiyey maya dheheen yakfiru allahu laka yaa ukhay allah kuu dembi dhaaf allah kuu dembi dhaaf saasay ugu jawaabeen nebiga sala allahu calayhi wasalam xaqiiquu sheegay xaqiiqadaasi waa maxay nimankani waxay gaadheen darajo ah hadda dadka shuraaxda qaarkood waxay ku leeyihiin fi lxaqiiqa marka la yidhaah yani abu bakr kelimadda uu ku canaantay huwa muxiq lianna sulxi baa jira heshiis baa jira mar hadduu heshiis jirana
kalimaadka dagaal iyo dhibaato keeni kara lama rabo muslimiintuna way qaateen heshiiska laakiin xaqiiqo kale jirto waa maxay ilaahay maba ogolas nimankaas in laga xaleeshiyo biayi sabab min alasbaab hadday cadhoodaan ilaahay baa cadhoonaya hadday raalli noqdaanna ilaahay baa raalli noqonaya riwaayo kalea ku timid libacdihim عمار بن ياسر رضي الله عنه أو ياسر رضي الله عنه إن الله لا يغضب لغضبه ويرضى لرضاه وحو رالي كنقضان إلهي برالي كنقضان وحو عروضان إلهي باو عروني ودرجة أن لقد تصورين إنسان ضعيفه مسكين إنه قالوا لولا هذه الصفات أستانت صالحين ولا ليال درجات كأي قارين إلهي سبحانه وتعالى بأنه شيء في كتابه مراتبت أي أسوى مرنا وأنه شيء وح أي مركة ربي قد كم تنيهن إلهي وأنه شيء في الحديث القدسي وحكب اللوذي هذا الكإلهي ولكن حديثه والنبي أنه شيء من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولي من أولياء كم ذا نكي لعلوبة كاها أقادو أنيقا دقال وإعلامي أما والله دقال لما ياوي أنا ورب العالمين الله دقال لما ياوي ثم وحو إلهي الشيء درجاتك ولياسي ولايتك قالي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وح أدونكي يقول هذا أن كجعلها وحن كفر ديالي مجران بمعنى وح إلهي لو يقول هذا إلهي يقول جعلي هي وإن وحو هرتك وفرض يلي لما يشترته وأدلتي ماده ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه markii hore wuxuu dhammaystiray wax alla waxaan ku farad yeelay buu ilaahay ka bacdina wuxuu kororsaday nawaafisha aan waajibka ku ahayn ee nooca salaada kamida salaada shan baa waajib ku ah laakiin salaado badan buu tukadaa qiyaamul layl buu tukadaa salaatu duha buu tukadaa yani nawaafishiisu kala ayaa fara badan soonka ramadaan kaliya waajib ku ah sooman badan buu sooma sadaqada zakat kaliya haduu maal qabo وحول النساب كواجب لكنه وحول صدقات فربنا نوافل قرآن كفاتح هذا كلين وأقرأ واجب كوا في الصلاة ولكن أجزاء بذنب مالين كاستأخر استا ذكرك أنت اللي قربي وأنت وصلاة اللي قلت كذا ولكن أذكرتي سافر ربنا النبي عليه الصلاة والسلام منه كصلي وفي التشهد التحيات كمركم مريم ولكن وحلقة كن قرن مالين النبي كصلي عليه الصلاة والسلام أما كبر بدن إذن يغفر ذنبك حوير يكفى همك ويغفر لك ذنبك نباير يا رسول الله يعني وردي أما ذكري أما صلاتك أما دعاء إذا وان فرب ضياء وحقا رب ضياء إنسان كاغا يلا نص ما كدغا هذا دونت هذا كبد سنه كاغا خير بدن لبا ثلث هذا دونت هذا كبد سنه كاغا خير بدن الى يري اجعل لك صلاتي كلها يعني صلاه إذا في بعض الشروح ويكولين بمعنى دعاء إذا وفي بعض الشروح أذكارتي دور دم بصلي قاعد ما كدقا وحكى لهم يسكدايا وحنا بيقول جوابي إذن يكفى همك ويغفر لك ذنبك حتى تسايا شو إلهي همك إلهي وكافي لي يعني وحكو همية ما بكو إيمان يابا حتى كسوء آذان إله بكا كافنا ذنبك كان إله ودافيا لا بكو كل مية همي يمرقو أركب ميسيت يا دباتو دم دفن وكم حدكو هالشيء بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مركا قفل بقف وكبدي مركا هذا العبد الصالح أذكرته بتصدي وطاعة إلهي بتصدي نوافشي بتصدي إلى أوكجارب ويري حتى أحبه إلى أن كجعل هذا الله أرنا إلى أن كجعل هذا مركا جعل هذا كذب وحنقنا يا بويري سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه
anaa u noqonaya buu yidhi aragtidiisa iyo maqalkiisa iyo gacmihiisa iyo lugihiisa bimacnaa waxay dhaheen culimmadu ay yuwafiquhu allah ilaahay baa waafajinayo xubnihiisoo dhan baa waxay loo adeejinayaa taacada ilaahay yacni waxaan wanaagsanayn ma arki karo maba rabo inuu arko wax aan fiicnaynna maba maqli karaba waaba ka didayaaba meel xunna gacmihiisa la aadi maayo meel xunna lugihiisa maba tegi karaanba musaanun min allahi buu noqonaya ilaah baa ilaalinayo halkaa markuu marayo wuxuu i weydiistay addoonkaa waan siinayaa wuxuu iga magangalana waan ka magangelinaya bimacnaa ducadiisa ilahay mustajaab ka dhigaya walaalahi towfiiqda allahna waafajiyo alaslu fi sifaati cibaadi illaah addoommada ilaahay wan wanaagsan asaas waxaa u ah alacmaal alqalbiya acmaasha qalbiga ah qalbigoodaa wanaagsanaaday iimaankooda ziyaada ah rabbigood bay ku xidhan yihiin alsifaat alqalbiya ilaahay aad buu ugu ammaanay waata aayadda aan ku bilaabanay weeye ee markaa haddaan aqrinayay inama almu'minuun aladiina idaa dukira allah wajilat quluubuhum waa sifa qalbiya allah markay magaciisa maqlaan allah markii la yidhaha tawjalu quluubuhum quluubtooda cabsata oo baqdin baa markiiba kusoo degdegta allah hadday magaciisa maqlaan idaa dukira allah wajilat quluubuhum lilasaf shadiid aayaddaas in badan baan aqrinaa in badanna rabbigeen magaciisa waan maqalnaa in badan annagoo maqlaynana qaflaanu ku jirnaa mana isweydiinno mana ka murugoonno mana ka cabaad yani inaad isweydiiso wey yaa rabbi hadihi waa sifaat ulaa'ika hum almu'minuuna xaqaa baa ilahay kusoo dambaysiiyey mu'miniinta xaqa ee dhabta waa kuwaas dayib ma leeyahay anugu sifada ma leeyahay rabbigay markaan magaciisa maqlo ma gariiraa ma cabsadaa ma baqaa maya soo ma ahaa allele naqsi baa igu jira iimaankaygu kaamil ma aha waa inaan marka dadaalaa waa inaan gaadhaa cala alaqal ina wax iga maqan yihiin waa inaan ogaadaa aladiina idaa dukira allah wajilat quluubuhum kow waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana aayadaha ilahay haddii lagu dul akhriyana iimaan baa markiiba u ziyaada yacni hadday qur'aan maqlaan meeshaa kama kacaan ilaa iyagoo iimaankooda ziyaaday mahayne fa iimaanahum daa'iman fi isdiyaad daa'iman waa u ziyaadaya lianna qur'aan ma kala maqnaanayaan mar alla markay qur'aanka maqlaanna iimaankaa u ziyaada astaamaha dadka saalixiinta ilaahay jecel yahay addoommadiisay ka mid tahay haddaad leedahay anigu aan leeyahay anuu iska bilaabaya ilan ninkan hadlaya dhegihiisa ayaa dhegihiina ka dhow haddaan sifaadkaan leenahay aan ku faraxno haddii kalena in wax naga maqan yahaan ogaano wacalaa rabbihim yatawakkaluun tawakulkooda iyo tala saarashadooda iyo isku hallayntoodana calaa rabbihim bay ahaatay walaysa calaa hayrihi meel kale ma tala saaranayaan bimacnaa allahu rabu alcaalamiin ayay xaajaadkoodoo dhan u bandhigayaan khadwo ma qaadayaan tallaabo ma qaadayaan tala ma qabsanayaan safar ma gelayaan meel ma aadayaan ilaa wahum mutawakkiluuna cala allah rabbigood bay tala saaranayaan tala saarashada ilaahay waxaa ka dhalanaya in ay naftooda ayna ku kalsoonaanin yacni waxaa ka mida hadallada la iska sheego athiqa binnafs nafta oo lagu kalsoonaado laha macaani saxiixa bacda almaraat walakin walaha macnaa khaati jiddan wuxuu ku leeyay naftaada ku kalsoonow naf waxaa ugu khayr badnayd nafsu rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam isagoo rabbigii la hadlaya wuxuu ku yidhi isagoo ducaysanaya allaahumma inaka in takilnii ilaa nafsii haddaad naftayda ii wakaalato aad ii tala saariso takilnii ilaa dacfin wa cawratin wa danbin wa khatii'a wa inii laa ahiqu ila biraxmatik anigu kuma kalsooni raxmaddaada mooye wax kale kuma kalsooni naftiisa nebi moxamed sala allahu calayh wasalama oo khayru nufuusi watay wuxuu ku tilmaamay dacfi iyo khatii'a iyo dembi iyo cawra intaasoo dhan buu ku tilmaamay adoo iska miskiinna waxaad leedahay naftaydaan ku kalsoonay naftaada waxba ha ku kalsoominin ilaahay tala saaro maalan meelahan oo kale majaalistan khayr kale marka laysu yimaado khayr baa la isfaraa waxaa laga yaabaa inaad casmi iyo go-an gaadho
alla ilaah maanta laga bilaabo camalkaa wanaagsan ee saalixa inaan sameeyo ama xumaata aan horey ugu jiray inaan ka tago inta aadan go'aankaas goynin waxaad tiraa yaa rabbi naftayda kuma kalsooni ana waahiqun bik adaan kugu kalsoonay haddaad i waafajiso unba i waafaqaysa haddii kale ducooyinkay ka mid ahayd allahuma maa nadartu min nadrin aw xalaftu min xalfin famashii'atuka bayna yaday dalika maa shi'ta kaana wamaa lam tasha lam yakun asaaska cibaadullahi asaalixiin cibaadaadka wanaagsan ee jirkooda ka farcamay waxaa asaas u ahaa qalbigoodoo fiicnaaday oo tawxiid ka buuxsamay laa yushrikuuna birabbihim shay-a rabbigoodu ma shariik yeelayaan laa fi lumuur shirkigan iska waadixay ahee gaaladu ay asnaamtii caabudayeen iyo hayrullahi meel iska dhig daqaa'iqa shirki wax la yidhaha baa jira kalsooni aad hayrullahi ku kalsoon tahay waa nooc min ashirki waay haddaan ilahay naga cafinna waaba ku wada jirnaaba inta badan arrin baa kula soo darinaysa arrintaa kula soo darisay inta aadan hebel iyo hebel baa arrintayda xallinaya aadan ka fikirin rabbigaa u bandhig ma naqaan arrintaas caadana ma war hebel yaa yaqaan weliba meelahaas dhulalkaasaan ka nimid wasaaradda wax ka war hebel wasaaradda ayaa ka shaqeeya hebel ha iila hadlo kan ha la hadlo waa waasida dheer oo fog weeye kulligood waxaa ka dhow rabbulcaalamiin oo nawaasidooda iyo quluubtooda kullaha biyadihi gaal iyo muslim kulligood ilahay buu gacanta ugu jiraa mid iyaga ka mida haddii wax go'aan waraaq lagu gaarayo gacanta waxba kuma saxiixi karo saxiixid ilaa biamri illaah waxba kaama mancin karo waxba kuma diidi karo waxba kuma kaama goyn karo kuma dhibi karo kuma dheefi karo ilaa biidnihi subxaanah wahuwa aqrabu ilayka min kulli axad maxaa marka kuu diiday inaad isaga ahaad barido cudur baa yimid waa iska wada jirranaya waa la jirranya waa jirran tahay awal shay oo kula soo degdegayo oo markiiba qalbigaa ku soo dhacayo waa maxay markii aad xanuunsato la jawaaba ya maana iga sugaysaa maa jawaabtiin soo dhakhtar maaha hada ilmaha yaraa sheegaya madax hadduu xanuunu dhakhtar ha la aado soo maaha weli ma lays weydiiyey bal intaan dhakhtarka la aadan in ilaahay la baryo waidaa maridtu muxuu yidhi rabbigeen isagoo ka sheekaynaya ibraahim waidaa maridtu fahwa yashfiin nabiguna wuuba nafiyey ashifaa ila min allah wuxuu yidhi ducadiisii allahuma laa shifaa'a ila shifaa'uk laa shifaa'a ila shifaa'uk shifahaaga mooyo shifo kaleba ma jiro marka waxaa leeyahay haddii hargab iyo waxyaalo iska sahal ay kugu dhacaan kininkii meelahaasi dhib male haddaad iska ducaysato laakiin waxyaalaha khatarta oo cudurrada waaweyn iyo waxaa dadku hadda ay dhahaan lama daaweyn kara iyo yaqiintii baa waxay gaadhay heer ah in aad isleedahayba cudurku hadduu cudur xun noqdo mindhaa ilaahayna waxba kama qaban karo xaasha lilah kelimadda dabcan afka laga odhan maayo walaakiin qalbigaaga in badan buu odhanaya waxaase dhab ah hargabka iyo kansalka ilahay waa isugu mid adiga uun meel cidla has dhigin ilahay agtiisa waa isku mid laa farqa baynahuma alladii yashfi huwa allah wagayru allahi laa yashfi laakiin ilaahay subxaanahu wa tacala muxuu rabaa wuxuu rabaa yaqiin dhaba inay kaa timid oo aad isaga weydiisato xataa dhakhtarka aniga ha u tegin kuma lihin oo hadalkayga ha u qaadan dhakhtar ha u tegin oo wadaad dhakhaatiirta dadka u diidaya yimid ha odhanin anu saada kuma lihin waxa intaada dhakhtarka u tagin rabbigaa u tag oo weydiiso oo ha noqonin sida kii intuu dhakhaatiir badan soo maray markii dambe yiri meel kasta soo maray oo ilaahay baa ii haray ilaahay baa kii ugu dambaysay ka dhigtay waleesh maa jacaltahu awalan huwa asaga maxaa ka uga dhigi weyd lima lam tas'alhu xaajataka awalan xaaja kula soo gudboonaatay waay maa ilaahay baridid inuu marka أساس المسألة وهو اليقين والتوكل على الله ما لدويد ميل وزارة أوقفت وزيرك قدر بان حفيز كيسان يعني أظن قلاء أنه إسراء عليه بان ميشان فدي يرد اللي يراه
oo shaqadii maalin dhoweed laga eriyey baa meesha taagan fadhiya waa isna qaynayo wuxuu yidhi wallahi 2 bilood baa ninkan baan daydayay shaqadiina waa liiga eriyey isagiina albaabkiisa waa lii diidan yahay kelimad buu yidhi marka aad aniga ii galgashay wuxuu yidhi ما يحل مشكلتي إلا هو وكلمة يعني عربية ما فهم ما يحل مشكلتي إلا هو يعني مشكلة إذا ما حلنا سجموية حنا فرتكوا في قي باب الباب كي وزيرك مركب حولي إلى هذا الوحين ما مقول هذا هابوري إلى هذا الله يجزيك خير وحين هذا نقول هذا يا قول مرتين نقول هذا نقول هذا يا هاي وحين اللهم إلهي يا من لا يقضي حاجة هذا الإنسان إلا أنت يا من لا إله إلا هو اقضي حاجة عبدك هذا إله حاجة أدون كان وجود سوي حكم لينا إلى الوزير بنقولها لنا أن كلمة دي وإيري حاجة إذا ما قد إلا هو بابا اللي بتيبه وروح هذه كلمة إلا هو لا يستعمل إلا لله رب العالمين وزير كان معه ليس بشيء أدون مسكينه ضعيفة ويان أو أسقى بحاجة ديسة إلهي شاك وغفر لي فكيف تقول لا يقضي إلا هو يركض مسلم بوها يا رنتي وحوغي ويلقى شوي الحمد لله وحير جزاك الله خير نبهتني ويتم به شيء مرضى بقول نقول ما إن شاء الله يقضي الله حاجتك كانت وإسكت ما بقولين بهبينك بقول سؤال وحيري لبب لو دنكي أنت يدي مركز قد أقضي والباب كنت فري أو سوقبتي أو حفيز كسي جي أو سفي علي دقيستي أيو شغدين الدب يقصوا علي وحان لحاجة هذا يا قدي هذا الوزير ولا رب الوزير هو رب الوزير وحنقول هذا لرب الوزير ووافقت إن شاء الله إلهي بوافقت هذا أنت كذب بيسيبه ما شاء الله نكين ننفع عن النقطة وحويري حاجة إذا أنا يقدرنا ذي ويري قينت أن ربك أيها سبحانه وتعالى فهكذا يا إخواني وفقني الله وإياكم الله نوافجي أنا أسكير بري شيكوين كشيكي كان أنا أو أزهر ماشي الليلة وحكدكتها في القاهرة هبدينا إسكا مساكين ولا إسكاها نين أو درس هين أو أهل المسجد كان أشوى مرة لما بقولوا جني ولا عق أدو فرب بدن بوشي كتب بدن بكوي شيء كبعد أرابورك وحنمد القاهرة أو حنو السعودية سوماليا ديارات دي سوماليا لين شوي وسيدتين كيبان لينا سيدتين كودي تقريبا أرابورك كيبان يمد كتب أدو فرب بدن وكراتين بدن بانوتها مركا ميزان كميت كماشة فردية وير مصرية وي ديارات وسوماليا لكن مصرية ماشة ميزان كم فردية ميزان بدن ولا عق بدن يقول صباح ما بهستوى العقتاس وحول العقتاس على قربها ما هي يعني إن كل جيسي وقعت مركاسو آد يعني إيه عنانتي أو دليلي أو إعاية أو يروى إيش ما عندك هذا الكلام كيف وين منكرت هذا الماشي وحال إن شاء الله هو ندوفين كتبتنا ويدوفيش وحب أوقاتي بإن تحدي وحويري أتحداك ويري أتحداك الصومال معهم كونا كرنا يعني كو عرعر قلينا يا بيها ولا مشاش يا عروك هاسويان كتب تاس وحويري مديال هذه يقول دوف كتب تاس كجوكت أما كتبتها دوف تأذيس كجوك لكن أول دوفتان أتحداك اليوم أنا وحاني إن شاء الله وأنا أتحداك أنا كتبت هنا ولا دوفنا والله أنا وحبس كوها الليلين إلا الله عنو قيرو سيدن كير في عنه واسكاها برياس يعني أوكي المهم وسقطي الدحوي الصبح أرورتي لحظة ما لها سيدي أردو بحضها سيدان أمالينا صلاة دي مساعد كان إسكتري إلهي بان إسكبري وحال إلهي وأني كتبتي أنا كلا حري وما أنت إلوفي من عندك وأنا واثق بالله إلهي بان إسكبري إن شاء الله صلاة دي صبح ولا أدمي صلاة دي صبح ولا أقمي نركي خميس كي وحين قبل ويملايين واحد إن توجي صلاة دي ما توجي صلاة دي مركان كبحني وأن سلام من أقصدي نيك يقول شو حاجة سفك هرب فردي وانين يعني حد قبضا له وضابط وينه نيك يوحنا أركي إسكأوي وبأوي يا با صلاة القرآن كيف تأثيري
ilama hadlayna baasaboorkii iyo tigirkii buu qaaday wuu fiiriyey waqtigii diyaaraddu ogaaday wuxuu yidhi sheekh diyaaraddiina wax xoogay baa ka dhiman min fadlak qur'aan kale noo aqri qur'aan baan akhriyey intaan akhriyay isna wuu sii ooyaya nin fiican buu ah waaba iska sii ooyaya calaa kulli xaal ninkii muxuu noqday madaarka amnigeeda ninka ugu sarreeyu noqday yani airboortka wax ka sarreeya male waxaa ka sarreeya kaan weydiistay inuu idhoofiyo man huwa allah rabbi bas walaysa hayru allah markaa qur'aankii dhammaynay buu yidhi nakeen waaba i kaxeeyey ninkii xafiis weyn oo kor ku yaalla oo kuraasi badan iyo quruxda iyo waxa yaalla aad yaabayso ayuu fariisiyey shaah buu ii dalbay buskud buu ii dalbay muddo markii aan musta'nisiin ahayn nin fiican buu ah ayuu wuxuu yidhi maxaa adiga u dhammayn weyday waraaqahaagii oo bahalkii diyaaradda lagu fooli lahaa aad u qaadan weydo waxaan xoogay mashaakil baa iga yar haystay xagga miisaanka yaa jooga meeshaas buu yidhi niman buu la hadlay waxaa leeyahay hebel hadda ha yimaado buu yidhi xaalan ninkii oo ordaya oo midhaa weligiiba aan xafiiskan looga yeedhin wallahu aclam baa soo galay wuxuu arkay anigiioo meesha fadhiya oo buskudki iyo shaaha iyo alaabtii hor yaalla oo ninkii daabitka ahaana uu maaragtay wuxuu u qaatay inaan wax ka sheegay ama aan dacweeyey waxbana kama sheegin waxbana ma odhan waa iska gariiray wallaahi bani aadam inuu bani aadam ka baqo maalintaasaan ogaaday waa iska gariiray aywa saacad albeen aywa fadilat الشيخ يا مولانا كنت هخلص وأنا لها الرنت حقي هداي وان كواي كذب أنجرين بوشاق وهذا ننكي لها أتحداك لا إله إلا الله المهم كيف يري يا ورك هذا كدافع كيف شيخ كان يعني أصحاب هذا البركة وإحساس يري ملعب ولدتي سويتها جيساو ضدك الأولو فينيش يلا خلصهم الآن جيب لي باسبوركي تيجي والله مركا وساكو لي هي كونتركا ديارده وحرنتها ولا حري ميزانك ولا حري سجا انتو دب تجي وباسبوركي قاضي او كراتين تيدي ماشي عدلو هداي كتوري سو urursaday ayu dib intuu furay buu dib u galiyay isagoo baasaboorkii iyo bahalkii booni baaskii diyaaradda lagu fuulayay la wada ayuu ii keenay سامحنا فضيلة الشيخ يعفو وكذا أنا آسف جدا كذا marka anigu waxaan iska yaqaansaday kan ii dhoofiyay inuu ilaahay jalla jalaaluhu anigii kutubtaydaba ninkii aan daabidka weynaa laba kiis oo xataa shantada cusla oo aan reebtay oo islaha marka yani miisaanku inuu kugu badan buu yiri leesh maxaa kuun u raacin weyd ala kulli xaal wuxuu iska dhaaf nin askari ugu daray wuxuu yiri u qaad sheekh gacantiisa galin wa ay واحد أو يتعرض لهذا الشيخ لا يمكن ما حدش يفتشه مفهوم أيوة ساعة البيت شيخ هلا مفتش كريم ورماشي يعني وزير كوين بان كروفي يريد يعني ما ضبوا عليه تفضل يا شيخ تفضل والله ديار ضد صومالي وصارنا ومركي هرني أركي سيدا لإيها قرداميني مركي دنبنا وحين ونكن موزير با حقيب وكسعدا المهم نستغفر الله ونتوب إليه إلهي هرتا يقينتها النسي أنا وحن أوجه يا إخواني ربي جين أنبرنه وأن كحرنه هو يقضي حوائجنا وأوجه تجارب فربضن وأنت إذا كبضن بعد وضح إنسان والبو قرصويه لكن أنا جوا إسكاحت هالضياء لكن وحن أوجه ذاون أساسه يعني أستامها ضدك صالحين توحى أساسه العلاقة القلبية بالله إيمان يتوكل يحب لله تبارك وتعالى كذب له الأعمال البدنية أو أيوه الرئيس صلاة أستامه ضدك الصالحين تا وحقوين إلهي وكو أماني وصلاة دائما إلهي صلاة وكو أمانة يعني يمدح الله إلهي وأمانة أدوم مديسة وحيالها وهد يقور كو أمانة وحاكم ذا صلاة كم ذا أول شيء القرآن كإله يسود يعني أول سورة في كتاب الله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إيمانكم حقوا حقا ويقيمون الصلاة ضدك صالحين تأها مركو أنبياء إن بدن كسو شيكي وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة موسى عليه السلام سيدوك له إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة
واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صفات كدتك صوصوبا في سورة المؤمنون كب الله ذي سورة مؤمنون لو بحيي قد أفلح المؤمنون بيكب الله بطي مؤمنين تيبان ليباني والليبانين كبعد الصفات كي أي كل ليبانين با إلهي تريي وحكب الله الذين هم في صلاتهم خاشعون صلاة دودة خشوعين وحو كل ما يستري والذين هم على صلاتهم يحافظون صلاة دودة إلى لني مرنوا خاشعين مرنوا حافظين صلاة دودة لا يضيعون وحو والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به كتاب كقرآن كويرمينيان وهم على صلاتهم يحافظون المحافظة على الصلوات أستامها أقوى وين أقوى تلمان وين أقوى تلمان ربجين عباد الله الصالحين أي كم ذا صلاة محل قدونية صدح شيء وحول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في صحيح مسلم ننكي صلاة فرض أي أتماده أو إلالية صدح شيء ركوعها وخشوعها وضوءها وركوعها وخشوعها كانت كفارة لما قبلها ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله صلاة نك يؤتماده أو إلالية ركوع لو حلو وضوء أو حلو جيدا الاستعدادات القبلية لو صلاة كوري وويسدي هالنقطة طهارة ذي هالنقطة استقبال القبلة هالنقطة إلالية ركوع ذا لو حلو جيدا أركان هذا أردن قيامك قعودك وحيل أقرني هجاجنتي دي فاتحة إن هذا هجاجسه هو اللي جاب فاتحة غلط هذا إسكوذا يعني هدي إلي جيركو حنون الأختر كادو بندقيسا هدي إنها وحاد كجرن ويد الأختر بعضو بندقيسا وحلقة يا با فاتحة غلط واللي جا إن هذا تودبري هذه إلهي ولا تكتب صلاة غلطة ما يفيدك مركا فاتحة إن أنا أتكسحه وواحد كنت كنيسة إسكسحه وأدبرته صلاة دي أدبرته هذا بوسقي أيدا أتكقاعدتي هذا كل جوجيني صلاة سي وناكسن أدو برته ومحافظة على ركوعها أرنت سدحات ومعي خشوعها وخشوعها خشوع هذا ومعي وقلبي ملهلا يعني القلب موجود يا مشايخ ولا مفقود قلبي مقام وذنا مركان صلاة تكنينه إلا من رحم الله وعلى إن صحابي كوا تابعين ويدين يا أبا فلان هل تسهو في صلاتك صلاة مركز كجرته مسهو إذا نعم بويري إني أقرأ الآيات من كتاب الله في الجنة فكأني فيها وأقرأ الآيات من كتاب الله في النار فكأني فيها ذلك سهوي ويغفر الله لي وحويري آية ذا إلهي جنة كصاب مركان صلاة كل حخرنا جنة دي بابا قليا وبابا يسلوبيا مركان كوا نار تاخرنا ينا نار تانو كجرو كله سهوي أنت ويا الله أنا إذا بدف مركا وحيدهن هذا الكيس سؤاشي إن ماذا فاهمني الدنيا لما كوشة كيسة قلبي جاء أنت صلاة كجرت نكاسي وحوير إلى أن أخر من السماء إلى الأرض أهون علي من أن أحدث نفسي من الشيء بشيء من الدنيا وأنا في الصلاة إن عرك كسر دعون دولك كل دعون أيا يقفض بويري يعني عرك إن كسر دعون ووين وخطر سنة يعني دولك كل دعون أنت وين أيا يقلفض إن أنا إلهي هرتي ستاجن أن الدنيا حن قلبي جاية كوشة كيستو وأرن لا يابا ما أصحاب النبي مركي اللي رضي الله عنهم يضد بدنوا أهل خيرها وكدم بي أرن له لا يابا معها وحوي ابن الغزالي رحمه الله أردتك شيكيني ولا غروها لا يابا بوير وحن أرني بوير دتك قاركي وحوي دت صالحين وحاجر هدي صلاة قلان أن أجين نيكي كو أكتو كذينين وأها يمشى وحي مري أن كلا جرانين أو كبر لما يبا أو وحاسو نبه كدح بحياة أو عظمة إلهي وينانتي سو إلى التجش هلا يا بيقول حنا ضدك زمن كين الجوجا ضد بقر هذا مركي أتجان بقر هذا كم إذا مركي أتجان وقول جيس أتجان سود وعي وحبك الجرن وعي هي بدي يسيب أنت يدبوشو أيو هدلي مركاسها وحل ليه وربل وحاجة سوقرو طلبك الله سوقرو لأنه وحي يدبوا ككل لهم ينبع وحي إلى هدي بقر هذا أدونك قوة كم إذا قاركوا ذي سايهين فكيف برب العالمين نكي رب العالمين برتا إنه مركا الخشوع ولا ليال إن نكد ذا صلاة إنه أي خشوع يالته أو إلهي هرتي سمركا تاجنتهي
aad isku daydo dadaal isku day inaad qalbigaaga soo xaadiriso inaad bayna yaday ilaahi aad hortaagantahay acmaal albadaniya caam ahaan inaad ku dadaashaa lagaa doonaya yaanan iloobin waxaa ugu muhiimsan walaalayaal oo sifaatu saalixiin cibaadillaahi saalixiin ah mucaamalada iyaga iyo dadka dhexdooda ka dhaxaysa nabiga sala allahu calayhi wasalam su-aal baa la weydiiyey waxaa la yidhi maa akharu maa yudkhilu nnaasa aljanna faqaala taqwa allah wa xusnu lkhuluq taqwada ilaahay waa calaaqadii iyaga ilaahay ka dhaxaysa iyo wa xusnu lkhuluq waa tii dadka ka dhaxaysa inuu akhlaaqdiisa u hagaajiyo naartana maxaa dadka ugu badan oo geliyaa la yidhi alfamu walfarj buu yidhi afka iyo farjiga marka waxa ugu weyn ee jannada ku geynaya markaad ilaahay calaaqa fiican la yeelato dadkana inaad calaaqadooda aada la wanaajiso dadka calaaqadooda waa 3 martaba marka 3daa martaba haddaad la timaada nin fiican baa tahay astaamaha dadka saalixiintana waa soo gelaysaa awalan wa qabla kulli shay dhibkaaga in muslimku ka nabadgalo muslim ha dhibin afkaaga ha ku dhibin ha xamanin meel lagu xamaanayna ha dhagaysanin nafta aaday u jeceshahay inay wax xamato ha xamanin nin saalixiintii ahaba wax laga sheegay anuu haddaan cid xamanayo hooyadii baan xaman lahaa oo maxaad saa u yeeshay dee hooyaday baan dad ugu jeclaho xasanaadkayga hooyaday un baan u quuraa buu yidhi cid kale uma quuro marka qof kale ma xanteenba marka qofka aad xamanayso ogow waa rasiid aad bangigiisa aad ku shubayso raatibkii bishii aad sugayso oo dhan ka waran haddii hebel aad lagu wareejiyo aan weliba libiya abaal kuugu qabin soo dhibaato maa qof adinkaaga ha ku dhibin ishaada ha ku dhibin qalbigaaga ha ku dhibin qalbiga inaad xaqirto qof muslima waxaa weeye buu yidhi kafaa bilmar'i sharan an yaxqira akhaahu lmuslim inaad qalbiga ka xaqirto uu iga liitaa aad qalbiga hoosta ka tira muslimiintoo dhan inay kaa fiican yihiin u qaado wuxuu yidhi imaam ashaatibi raximahu llah wallahi haddii waqti haysana imaam shaatibi abyaadiisan aqriyi lahaa baaraka allah fiik alimaamu shaatibi raximah llah dadka wan wanaagsan sifooyinkoodu ka sheekeeyey في كتاب كيسة مقدمة ديسة في القراءات إسقوا وقدر له إن ننكي قرآنك على الأقل يلنا وصفات كايا شو هذيك وسن أهل القرآن هين وحيري بنفسه من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا بنفسي بانكو في ديودي أما كوبا رحفرنا إياه من استهدى إلى الله وكان له القرآن كدكتي شربا ومغسلا عبتان يو غسل أو ماركت قلبي يسوي كدقو إلى أسود وحيري يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا تذكر أن إني سيدهن وإسيه كفض بدنيهم بو كترنا يا لأن كل قد قدرك إلهي بيكو سعدان قف هدو ما أنت حق عبادة كليتهم ما حق ريو ما أوجا بري وح إلهي إن كانوا قرايا يسقى ماشوا نقون دونه مركب حوليه لعل إنه يجا خير بدنا هذا هدو قلبي يس أبدا قف البابا وحوير نين صالحة نين كوين هذا دركته وحاترا ويقفض لبدنيا هي محايلي ربي جيبوا أسجود أنت أنا لن أدونك متكاير هذا دركتنا وحاترا الله اللي هو يقفض لبدنيا هو دم ببدنه ناني قليم بان أنقلي أنا ويوسن يسقى ولي قليل مركب تذكر أني كافي عيني وحيري فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الأسى يهتاج في القلب مشحلا يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألا وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا وبيت عجيب له وحيري دتك أدل نغميسو أما أدل جوكتو إن ظلم الآن أذهاته لغميابو لازم وإن ظلم كوي ماذا dadka kuwii ugu khayr badnaa dulmi la'aan ma ahanin nebiyada ugu khayr badnaa waa la dulmiyey kulligood waa la dulmiyey adina maxaad filaysaa marka ilaa wa ilaaba waa lagu dulminayaa dadkan ku dulminaya waxaad kula noolaataa sida eyga oo kale eyga sifo wanaagsan uu leeyahay jira waa maxay dadkiisu way gaajaysiinayaan waa ay dilayaan waa ay caayayaan waa eryayaan habeenkii markii tuug soo dhaco waa hurdaan iyagu dadkii maalintaasoo dhan dhibayey habeenkii tuug markuu soo galo reerkooda oo wax ka qaadanaya xoolahooda qaadanaya odhan maayo dadkii maanta dhibkaa ii geystay anu aamuso tuugoo alaabtaha ka qaata ma dhahayo wuu ku yacni
wuu ku wahwahlaynayaa oo marka waa ereyayaa oo waa wuu kicinayaa oo si ma arag yani maalkiiba u dhicinayaa ma oranayo maanta sidan ii galeen wuxuu yidhi adigana waxaa lagaa doonayaa dadka inaad saa ula dhaqanto haddii lagu dhibo haddii lagu caayo wax kastoo laguu sameeyo adigu waxaad ula dhaqantaa si wanaagsan oo ibdil lahum alxasanaat marka walaalana tawfiiqda allahna waafajiyo cunsur alkhuluq waa min ahami alumuur salaax kaste iyo wanaag kaste istaamo kaste oo fiican oo mu'minka muslimku la yimaado waa hal bacaad lagu liso waxba u tari mayso haddii ay akhlaaqdiisu aysan wanaagsanayn haddii aad dadka dhibayso ama waxaa dhici doonta ama nebigu waa noo sheegay in acmaal fara badan qofku la yimaado yowma alqiyaama oo maqbuula ah oo saalixa ah oo hadhow la kala qaybsado hebel waxaasuu ilaahay ugu sameeyey adna intaa qaado adna intaa qaado adna intaa qaado acmaashii baa dhammaatay dad kaloo marka daalac u raacay baa meeshii jooga waxaa loonaya dembigiinni soo qaba imisaad ku leedahay intaas waxa sanaada ma haysto keen dembigaaga isagii baa la dul saaray naaru jahannamaa lagu tuuray nebigu kaa wuxuu ku tilmaamay almuflis wuxuu yidhi almuflisu min ummatii من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا مرك حقوق ذا بني آدم كإن ليس كإلالي ومن أهم صفات عباد الله الصالحين رمضان بانقصو صعدا أو مال ما نجحيان وبشي ugu khayr badnayd ee aad muslim haddaad tahay mu'min haddaad tahay aad ku kasban kartay إن شاء الله تعالى بعد توفيق الله الأعمال الصالحة إيو دتك وناكسن أستامه هذا صونكو وحو إلهي كتل مامي إنه تقوى كيني لعلكم تتقون ومن التقوى أعماش صالحة إنا دلالسو إيو أخلاق ذا إيو حقوق العبادة إنا دسك إلالسو والله سعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشاروين فربضان بونوش يقل في رمضان ninkii sooma oo falam yarfu oo nabigu calayhi salaatu wasalaam yani ninkii sooma oo aan ka tegin rafath alqowl iyo waxyaalaha xunxun iyo hadal xunxun aan ka tegin ilaahay subxaanahu wa tacaala gaajadiisa iyo oonkiisa waxba ku fali maayo waxbana u tari maayaan marka soonku waa furso wanaagsan oo aad ku kasban karto biidni illaahi tacaala sifaadka iyo astaamaha dadka wanaagsan weeye ومن أستامها دتك وناكسن وكسو ختمينا وحويان إني خير كدتك الله جعلادان وإنه ولي قود يو كلي قود اسكو كوبن أو هدي إلهي كوافجيو وانا كوافجيو هذا ولا لها وانا قال الله جعلاته إن هذا جعلاتنا وإن هذا سعجيلو إن هذا سعيدنا معناه هذا وإن الداعي نقطه هدتك دينتي إلهي وبغضه أو خيرك ويانو خيرك إلهي كوافجي دتك جعليسي أديو أظن اسكا فانفانينين واسكا سريسينين خيرك جعليسي dadka walaalaha iyagu maanta muqassiriinta cibaadada ka fog ha iska kibrinine u tag oo iyaga soo dun oo khayrka u sheeg oo la jeclow astaamaha dadka saalixiinta ka mid tahay tawfiiqda allahna waafajiyo nas'alu allaha tacaala an yuwaffiqana ونسأله أولا أن يغفر لنا ددوا وناكسن إنان يعني أعماشه ذا كشيكينو أنه نحال كأن إلهي أقيهي إلهي وحن كبرينا إنه ندم الأفو ونتان نقبن ثانيا إنه نوافجيو إن أعمال صالحة أو وناكسن ودد كان نقارسيسي إلهي أونسيه هبة من عنده يا واهب المنن العظام إلهي وأذا منن ووين ددك أقيبية وين نسينا هدايها نقطة يا رب العالمين إن أدنها نونسو أو نوافجسو وعبادك الصالحين أن نقمد لكتو إن ذلك عليك يسير وبالإجابة جدير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات صلى الله على النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خير.